كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشر كي تضبية طبناد برنامج كيني بربارنتا أبدك labadii cashar ee kan ka horeeyay waxa aynu kaga soo warramaynay ilmaha markuu dhasho ilaa intuu ka gaarayo 2 sano u horeeya waxyaabaha waalidka looga baahan yahay. waxaynu soo qaadanay 8 qodob. maanta insha Allah taala waxaynu ku soo gabagabayn doonaa 3 qodob. qodobka ugu horeeya ee kamida waxyaabaha looga baahan yahay waalidka waxa kamida al-aqiiqa ama waxa markaa loo yaqaano markaa wanqalka. ilmaha markuu dhasho waqtiga maalinta 7 cisho ee u horeeya wixii ka dambeeyaba ayay markaa ka bilaabmaysaa. xadiiska markaa ay warinayso markaa saxaabiyada Kulsum al-Ka'biyya ee markaa ay soo saareen Imaam Ahmed iyo Tirmidhi iyo Nisaa'i iyo Haakim Ibn Hibban oo ku warinaya markaa saxiixiisa waxa uu markaa ay leeyihiin saxaabiyadaasi waxa ay nabiga weydiisay aqiiqa yani wanqalka ay wax ka weydiisay. nabigu calayhi salaatu wassalaam waxa uu markaa ku yiri anil ghulaam shaatan wal jari wa anil jariyati shaat. yani ilmaha isaga labka ah ama wiilka ah waxa isaga looga baahan yahay in markaa loogu wanqalo oo markaa loo qalo 2 neef oo markaa adhiya. gabadhana waxa looga baahan yahay markaa iyadana 1 neef oo kaliya. laa yadurukum adhukranan kunna am inatha marka yani waxa labadaba markaa waxa loo sameeynaya marka ama ha ahaadan lab ama ha ahaadan markaa dhadig. mar kale xadiiska markaa uu warinayo markaa can Samra laga warinayo isna waxa uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wassalaam waxa uu yiri كل غلام رهينة بعقيقته. يعني المكستا وحسارا أو مركا الأولى ومحي عقيقة مركا يوانقل كاسا سارا أو تذبح عنه إن مركا لو قرعه مركا لو قلعه يوم 7 ما أنت تضبط أو ويسمى فيه مقعنا ما أنسى الله بحنا ويحلق فيه رأسه ماذا حنا أمتمهنا maalinta ayaa markaa laga jaraya. marka de saxaabada iyo markaa salafkii hore ihtimaam badan bay siin jireen inay markastaba Ilaahay u mahadnaqaan oo farxadana markaa ay sameeyaan. haddii xataa markaa ay xoolo waayaan oo ama ay maalkii waayaan casfuuran iyo markaa shimbiro ay markaa waa maxay qali jireen iyagoo markaa Ilaahay mahadnaqiisa markaa la imanaya. ilmahana waa maxay farxadda la qaybsanaya markaa. haddaba shuruudaha looga baahan yahay wanqalka marka la sameynayo waxa ay la mid yihiin marka la sameynayo marka adxada ama marka udxiyada marka la qalayo maalmaha ciidka neefka waxyaabii looga baahnaa inuu marka ka badnaado ayuunbaa kana looga baahan yahay. sabab maxay aanu marka cawarnayn aanu marka dhutinayn aanu marka ahayn de neef jaban aanu marka ahayn marka xanuunsanaya. sidoo kale waa maxaynaan de neefkii marka hilbihiisa aan la iibin ama haragiisa aan la iibin oo kale sida waa maxay dadkii ay cunaan oo si sadaqeeyaan inta markaa loo baahan yahay. haddaba caqiiqadan iyo wanqalkani maxay ahayd markaa ama sababta waa maxay keentay ama ilaa xilliga markaa jirtay. carabtii hore ee markaa de nabiga ka horeeyay way sameyn jireen markaa inay markaa ilmaha caqiiqada iyo waa maxay wanqalka ay u sameeyaan. markii xilligii nabigu yimi calayhi salaatu wassalaam isaguna waa maxay uu sii waday arrinkii oo dadku waa maxay way sameyn jireen laakiin qaabkay u sameyn jireen dadka hore ayaa markaa uu nabigu bedelay markaa. oo xadiiska warinaya markaa Burayda uu warinay radiyallahu anhu waxa uu leeyahay markii islaamka ka hor aan markaa jaahiliyada ku sugnayn ilmaha markuu noo dhasho waxaanu markaa u qali jirnay aan u gowraci jirnay markaa neefka.
neefka markaanu u gowracnona kadibna dhiigga ayaanu soo qaadi jirnay neefka oo ilmaha marka aan waa maxay madaxa u marin jirnay. kadib markuu islaamkii yimi yacni wuxuu leeyahay waa maxay arrintii way isbedeshay oo waxaa la keenay waa maxay in dee ilmihii waa maxay neefkii loo gowraco oo si fiican waa maxay ilmihii halkaa loogu qalo. kadibna marka aan dhiigii waxba ilmihii handalo doonane zacfaraan iyo markaa de waxyaaba mataqaana udgoona ilmihii loo mariyo. saasay markaa islaamkii markaa quruxda iyo wanaaggaasu markaa ula yimi. arrinta markaa waa maxay sagaalaad ee waalidka looga baahan yahay inay sameeyaan ama ubadka u sameeyaan waxa weeye khitaanka waxa la yiraahdo ama waxa loo yaqaano markaa gudniinka. gudniinka isagana waxa markaa ka dhalanaya oo ka ratibmaya arrinta sharciya markaa oo qofka looga baahan yahay oo xadiiska nebigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wassalaam ida iltaqa alkhitaanaani faqad wajaba alguslu. yacni markay kulmaan labada qof markay isu tagaan oo jimaaca iyo galmada ay samaynayaan yacni nebigu wuxuu lahaa ida iltaqa alkhitaanaani labada boosishan ama labada meelood ee qofka waa maxay laga guday markay labadaasi kulmaan ayuunbaa faqad wajaba alguslu ayaa qofku inuu maydho ayuunba markaa waajibaysa. marka halka waxaynu ka arkaynaa waa maxay in labada qofba waa maxay marka waxaa loo baahan yahay in markaa la gudo. xadiiska markaa ay soo saareen bukhaari iyo muslim ee saxiixa ah ee warinaya markaa abi hurayra ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay alfidratu khamsun. yacni fidrada iyo markaa dareenka iyo qofka ilahay waxa uu ku abuuray looga baahan yahay waa 5 inuu qofku inuu la yimaado. kow waxaa looga baahan yahay alkhitaanu qofku waa maxay in dee qofka in la gudo markaa intaa uu yar yahay khitaankii markaa in loo sameeyo lab iyo dhadigba. laba waxaa qofka looga baahan yahay alistixdaad waxa la yiraahdo qofka waxay timihi hoose waa maxay inuu iska jaro marka. saddex waxaa looga baahan yahay qofka shaarubaha marka qasi shaarubaha in markaa inuu iska yareeyo. afar waxaa looga baahan yahay qofku waa maxay cidiyahana waa maxay inuu iska jaro. shanna waxaa looga baahan yahay timaha markaa ka soo baxa kilkilooyinka inuu iska jaro marka iyagana. shantaasi waxay ka mid yihiin fidrada markaa islaamka. haddaba fidrada iyo abuuritaanka qofka ilaahay markaa uu ku abuuray ayaa markaa laba qaybooda. midna waa fidratun markaa waa maxay tatacallaqu bilqalbi oo qalbigeedu waa maxay ku tacalluqda qofka waa maxay qalbiga looga baahan yahay inuu ka aamino ka ictiqaado oo ka sameeyo sida maxay ilaahay inuu rumeeyo ilaahay inuu jeclaado waxyaabaha afcaasha wanaagsan oo markaa uu sameeyo. taasi waxay ku tacalluqdaa yacni ruuxda iyo qalbiga markaa. fidrada kalena waxay ku tacalluqdaa iyaduna mid camaliya tanida qofku waa maxay ma ictiqaadaye wuu samaynayaa marka waa action qofka looga baahan yahay inuu sameeyo. iyaduna actionka iyo ficilka qofku sameynaya camaliga ahi waxay ku tacalluqdaa qofka markaa badankiisa ama jirkiisa marka. marka shantanba waa maxay waxay ka mid yihiin waxyaabaha qofka looga baahan yahay qofku inuu camal ahaan ama action ahaan ama ficil ahaan uu sameeyo marka. marka kow nebigu muxuu ka bilaabay alkhitaan uu ka bilaabay gudniinka marka waa maxay uu nebigu ka bilaabay calayhi salaatu wasalaam. marka de nebi aadan ba ugu horeeyay marka cidii waa maxay khitaanka iyo markaa samaysay sida marka axaadiista marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ay noo sheegayaan. waatuu nebigu tuulaa waa maxay waxa la guday marka isagoo jira 8 sano markuu ahaa ayaa marka gudniinka marka lagu sameeyay. kadibna waa maxay way soo socotay oo saas marka u soo socotay nabiyadii iyo marka rasuusha u soo sameyn jireen ilaa marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii xilligiisa marka laga soo gaarayay. marka gudniinka in marka ubadka la gudo iyo ilmaha marka waa sunnadii iyo marka waxyaabihii wanaagsanaa ee marka ambiyada iyo marka rusushu ay sameyn jireen marka calayhi salaatu wasalaam. qodobka u dambeeya ee waalidka looga baahan yahay inay markaa sameeyaan waxa weeye arridaacatu ila alxawleyn waa naasnuujinta ilmaha marka in naaska la nuujiyo yacni waa maxay 2 sano u horeeya marka. islaamkeenu yacni waxa uu isku xidhaa lab iyo dhadig wuxuuna iskugu keenaa guurka marka. sidoo kale waxa uu ku kulmiyaa oo marka ay meel ku nagaadaan oo ay sameeyaan qoyska marka. saasa marka waxa bulsho dhameystiran ayaa marka ku soo baxda oo marka de guurka uu dhaco kadina waa maxay meesha qoys baa imanaya kadina meesha waxa bulsho iyo marka mujtamac ayaa marka imanaysa. islaamku ninka waa maxay xuquuq ayuu siiyay waajibaadna waa saaray. sidoo kale qofka dumarka ana
ilaahay xuquuq buu siiyey, waajibaadna waa saaray. ninka ilaahay waxa uu saaray nafaqada iyo waa maxay reerka inuu biiliyo oo biilka waa maxay uu keeno iyo wixii markaa kale waa maxay u baahan yihiin hu iyo hoyba ah. marka dumarka iyo waa maxay ilaahayna waxa uu iyagana saaray irdaaca marka iyo naasnuujinta inay ilmaha markaa naasnuujiyaan. haddaba qofka waxa looga baahan yahay markaa sida dee naasnuujintu waa maxay waxay soo ahayd marka caado hore oo ilaa xilliyadii hore marka carabtii hore xataa waa maxay soo jirtay oo arrin marka insaani ah oo dhammaan dadka waa maxay samayn jiray markaa ahayd. ilaahay marka waxa ka warramaya marka nabi muuse waa tuu marka waa maxay lahaa waxaramna calayhi almaraadica min qablu. sidoo kale waxa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dee naasnuujinta ayaa marka waa maxay ku soo koray waa maxay marka uu ku soo barbaaray. haddaba xilliyadaa hore yacni lama aqoonin dee caanaha artificialka ee man made-ka dadku marka ay samaynayaan ee ubadka markaa lagu korinayo ee la siinayo lama aqoonin, lamana samayn jirin ilaa casrigan iyo xiliyadan dambe markaa mooyaane. qofka muslimkaana waxaa looga baahan yahay yacni dariiqa ilaahay u jeexay iyo dariiqa marka ilaahay u toosiyey qofku inuu raaco. saasaa marka waa maxay ilmaha horumarkiisii maskaxdiisii inay wanaagsanaato, jirhkiisii wanaagsanaado, saasay markaa ku jirtaa. oo qofku waa maxay waxyaabaha dabiiciga ah dee caanaha ilaahay markaa halkaa ku abuuray ilaahay halkaa u geliyey ayaa looga baahan yahay qofka waalidka dumarka waa maxay inay markaas siiyaan oo ilmaha waa maxay caanaha marka ay siiyaan oo ay ka ilaaliyaan waxyaabahan kale marka. haddaba qur-aanka iyo markaa diinta islaamku ilmaha iyo hooyadaba ihtimaam badan iyo muhim badan ayay siiyeen labaduba. qur-aanku waa maxay waxa uu ka sheekaynayaa ilmaha naaska waa maxay in la siiyo si kasta oo waa maxay xaaladda iyo duruufta labada qof ee isqaba ay u adkaato. hadday isqabtaan, hadday isfahmi waayaan, hadday kala tagaan, ilaa haddii waa maxay laga soo gaadho hadday xataa isfulaan oo ay kala tagaan, mar kastaba waa maxay ilmihii naaskii in la nuujiyo naaskii maamuda ama hooyadu ay siiso isagu meeshii kama baxayo oo kama tegayo. ilaahay waxa uu leeyahay waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn. yacni waa maxay waalidku ama waa maxay hooyooyinku ubadka markaa naaska ha nuujiyaan oo ha siiyaan 2 sano markaa oo dhammaystiran. liman araada an yutima radaaca markaa 2 sano waa maxay arrin waajiba markaa maahe waa qofka dee raba markaa inuu dhammaystiro markaa qof sidoo qofka waa maxay uuna ka koobi karaa oo ka yarayn karaa marka. liman araada an yutima radaaca marka waalidka markaa dumarka maxaa saaran ayaga xaggaasaa markaa saaran. raggina maxaa saaran wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf. iyagana waxa saaran waa maxay dee ubadka inay waxay cuni lahaayeen u keenaan, waxay huban lahaayeen u keenaan baa iyagana raggii saaran. laa tukallafu nafsan ilaa wuscaha. nafna waxaanay qaadi karayn oo aanay xamili karayn oo aanay awoodu lahayn ilaahay markaa cidna ma saaro marka. haddaba waxaa jira waxyaaba markaa qolyaha caafimaadku marka ay sheegaan oo dee faa'iidooyin badan oo ku jira oo ku duugan naaskaa ilaahay subxaana wa tacala halka uu ku abuuray caanaha waxa ka soo baxaya ee ilmaha la siinayo faa'iidooyin fara badan ba markaa ku jira. kow waxaa ka mid ah bay yidhaahdaan caanahan ka soo baxaya naaska hooyada waa kuwa markaa saafi iyo keliina marka nadiif ah marka waa caana marka waa maxay wasakhi waxba aan lahayn. laba waxay yidhaahdaan yacni waa caano marka waa maxay aan qabowna aan ahayn kulaylna aan ahayn yacni soo kulolay iyo soo qabooji iyo yacni waxaa ma laha caana naaska hooyada ka soo baxaya. 3 waxa ay sheegaan yacni waa caano marka available at all the time marka yacni waa caano xilli kasta la heli karayo, waa la soo iibinayaa iyo waa lagu maqan yahay iyo yacni waa la waaye iyo sheekaasi waa maxay iyagu waa maxay caanahaasi ma laha. ka afraad waxa weeye yacni waa caano marka halka ay ku kaydsan yihiin aan waxba ku noqonayn oo caanahan kala marka la soo gado talaakad la geliyo meel kale la dhigo dee waa kuwa waa maxay marka iska xumaanaya marka iska baaba'aya marka. laakiin kuwan halka ilaahay storage halka ilaahay ku kaydinayo wax iska bedel habeeraatay ma jirto. ka shanaad waa maxay caanaha naaska hooyada ka soo baxaya ee ilmaha calooshiisa ku dhacaya caloosha waa caano ilaahay marka ugu talagalay oo munaasib ka ah
munaasib ku ah marka waxba aan gaadhsiinayn marka wax saameyn ah ama wax dhibaato ah ay u keeni karaan haba yaraatee ma jirto. caanahan kale iska artificial helmi caloosha waxa xanuunaysa caloosha waa socota iyo baanad ka baxaynba maanta oo dhan. waxyaabaha qodobka lixaad waxa ka mid ah caanaha naaska hooyada faa'iido leh waxa ka mid ah ilaahay caanahan waxa uu ku abuuray oo ku dhex jiray wax loo yaqaan marka antibodies marka waxyaabo caanaha ilaahay markuu ilmahaas markuu caanaha u cabo oo jirkiisa ay gaaraan caanaha waxa ku dhex jira waxyaabo jeermiska iyo wasakhda jirka ilmaha soo gelaya ka difaacaya oo ka ilaalinaya marka waa maxay jeermiska waxaas aan u soo dhawaanayn oo cudur kasta iyo wax kasta haday ahaato allergic haday ahaato haday waa maxay ahaato cudur dhiyo imaado oo dhan oo infections kale oo jeermis kale oo dhan yani caanahani waa maxay waa caano ilaahay uu ku dhex abuuray antibody-ga way la dagaalamayaan marka kuwan kale iska dayay wax ka celiyaan iyaga baa ilmaha cudur u keenaya marka. waxyaabaha kale ee marka waa maxay faa'iido kamid waxa kamid ah de waalidkii waa maxay in weydkoodii ama miisaankoodii culayskii badnaa uu kaga dego marka waalidkii waa maxay ay ku nastaan marka caanaha maxay ka soo baxaya iyaguna maxay marka waa jirkii haduu marka culaysku ku badnaa oo kale iyaguna ay ku nastaan. waxyaabaha aadka u sii muhiimka waxa kamid ah ee aadka u qaaliga ah yani ilmaha marka uu saaran yahay dhabta hooyadii ee marka ay laabta halka sa ugu hayso qofku wuxuu dareemi karaya oo fahmi karaya yani ilmahaas jacaylka iyo maxabada iyo marka dareenka ku jira marka uu dareemi karayo yani halka amaanka ay wanaagsan ilmaha maxay hooyadu marka ay laabteeda ay ku hayso iyo halka raxmadda leh naxariista leh deganaanta leh marka halka laga yaabo caanay isku soo qaatay caagad yar ama waa maxay inta isku soo qaatay meelaha maanta isku kala wareegayo tanaa kala naxariis badan oo ka deganaan badan oo ka wanaagsan marka. haddaba waxaynu ku soo koobaynaa arinta marka ku saabsan naas nuujinta iyo marka ilmaha in naaska la siiyo inta marka labada qof iyagu marka ay waa maxay ay marka isku afgartaan ilaahay muxuu leeyahay fain araada fisaalan an tashaawurin فلا جناح عليهم يعني هدي marka iyagu ay isku afkartaan inta ilmaha ka dhigayaan imsa ilmaha naasku nuujinaysa imsa ka dhigna wax fiican weeye marka waqti ay u sameeyaan caadi oo isku marka ay isla ogol yihiin marka ma isla ogyihiin waalidku. haddaba waalidka waxa looga baahan yahay maadaama deena hooyo kaliya arintu ay saaran tahay hooyada waxa looga baahan yahay shaqada naas nuujinta marka yani inay marka ay kula timaado niyad wanaagsan marka niyada marka iska wanaajisato ilaahayna marka ay ka rajayso raali ahaansho marka ilaahay marka raali marka ka rajayso waayo marka waa maxay فإنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أي wax kasta maxay marka ku hagaagayaan oo ugu iman shay kasta wanaagsan oo fiican marka marka u imanay oo hagaagaya marka waxyaabaha aan wanaagsanayn ee loo baahan yahay waalidku inay mar kastaba maxay iska ilaaliyaan ama ka fogaadaan ee makruuha ah ee aan fiicnayn waxa kamid ah yani ilmihii isagoo marka dhashay oo marka adduunka ku soo koray ku soo biiray oo in yar joogo muddo yar oo kooban in waalidku markaba maxay ay uurkii ku xigay marka ay qaadaan oo waa maxay ilmihii waa maxay kalena waxa kamid ah ayna waa maxay siiyaan caanahan kale marka waa laba marka shay aan fiicnayn koo waalidkii waa maxay waxay sameynayaan oo kale waxay sameynayaan waalidkii marka ilmihii saa u dhalaan muddo yar u jiro markaba ilmihii ka uurkiisa way qaadayaan kii kalena caanihii dadku soo sameeyeen ama laga soo warshadaha aan fiicnayn ay marka waa maxay u dhiibayaan marka waxa meesha waxaan noqonaysaa marka waa maxay waxaan waqtiba ku saabsanay ama maamul waxba aan lahayn marka oo waxa laga yaabaa ilmahan hadda waqtiga caanaha la siinayay iyo ka soo socda marka dhalan doonaba ilaa maxay kala duwanaadaan kana waxay 6 bilood iska cabo ka marka 5 bilood marka meesha marka ilmi ubadkina maxay marka kala duwanaadaan oo kala marka waxay kala saameyn bataan marka waalid marka waxaan ugu soo jeedinaynaa aan ku baraarujinaynaa aan ku dhiirigelinaynaa in marka noloshu waxay ku qurux badan tahay ku fiican tahay waxaan rabnaa in ubad fiican inoo soo baxaan oo toosan oo quman oo toolmoon maskax wanaagsan leh waxay ku soo bixi karaan ubadka waa maxay caano fiican la siiyo waqti fiican oo maxay loogu hagaajiyo oo loogu beego saas waayo caanahaas iyaga marka rabaani ilaahaas ku abuuray iyaga wax kasta wata sonkor uma baahna waxba uma baahna saas marka waxay ku yihiin kuwa marka dabiici marka dhameystiran. barnaamijkeeni marka qaybtii ku saabsanayd ilmaha intuu ka soo gaaraya marka 2 sano كوبي qodob ayay marka ku soo ururin doonaa oo aan ku soo koobi doonaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa ahkam wa ilayhi marji'u wal ma'ab.